السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسو دوادا مركلة إيا فيديو عصب فيديوغان waxaan ku fiirinaynaa geemkii u dambeeyay Arsenal ay ciyaartay Granit Xhaka first halfkii hore ciyaar qurux badan soo bandhigay iyo waliba Arteta iyo tactics uu isticmaalay Fabrizio Romano iyo update-kii ugu dambeeyay ee suuqa uu kaga warramayay marka akhiyaaray haddii aan ku bilaabo marka hore Arteta iyo tactics uu isticmaalay inta uu bilaabanin geemka waxaan rajeynayay dhammaan jeclaa inaan arko left back inuu ciyaaro ciyaaryahanka Arsenal maartay injariga kaga maqnaayay mar dhow soo kacay ee maartay Europa League bariyahan ciyaarayay geemkiisii u dambeeyay inta uu soo kacay kaasoo ah Kieran Tierney asaga ayaa natural markuu ciyaarayo dhinaca iyo maartay halka uu ka ciyaaro left back Tomiyasu maartay Arteta uu ku saxsanaa inuu maartay Liverpool Mohamed Salah uu ka hor keenay Tomiyasu qab difaaci ahaan hase ahaatee inuu ciyaaryahankan uu ku soo bilaabo game sidan oo kala ah waliba game aad maartay 3 pointiga si easy ku qaadan karto inaad ku soo bilowdo Tomiyasu oo difaaca aanan banoonta soo raacanaynin aad ayaa looga fiicnaa haddii aan fiirino passing network ka dhacayay dhanka maartay Ben White iyo right backiis isaga Ben White iyo Odegaard iyo Saka ciyaar qurux badan ayaa dhankooda ka jirtay sidaad arkaysaan maartay waxaa ka arkaysaan graafka qaabkay iskula ciyaarayeen iyo passing networkooda iyo halka ay u badneed banoonta markay ciyaarayeen sidoo kale markii aad fiiriso dhanka uu ka ciyaarayay Tomiyasu asaga iyo Xhaka iyo Martinelli iyo Tomiyasu tafaraaruq ayaa ku jiray qaabkay u ciyaarayeen waayo maartay ciyaaryahanka Tomiyasu ma ahayn nin maartay banoonta hore u soo wadayo oo waa maartay qaab difaaceed ayuu wax ku waday sidoo kale tactiga kale ee geemka dilay ayaa waxaa iyaduna ah in Martinelli iyo Odegaard maartay sab ahaan uu bixiyay taasoo runtii waliba khaas ahaan Odegaard markii uu bixiyay geemka si xun u dishay waayo ciyaaryahanka Odegaard wuxuu ahaa intuusan geemka laga bixinin laba chance oo waaweyn ayuu abuuray halka uu ahaa ciyaaryahanka ugu fiican markii la yiraahdo dhanka box iyo weerar ahaanba qaab ciyaaryahanka ugu fiicnaa taana geemka way dishay Gabriel Jesus haddii aan fiirino isaga maartay levelkii Arsenal ay ka rabtay ciyaaryahanka maartay geemkan ma soo bandhigin oo waxaan ku aqaanay hadduu gool uu xireenin inuu maartay uu noqdo ciyaaryahan maartay contributionkiisa iyo dribblingkiisa loo baxsado oo maartay chances fara badan abuuro saahatay geemkan asaga ayaa chancesyada ugu badan helayay asaga ayaana qasaarinaya oo geemka markii uu maartay dhamaaday press conference ayuu wuxuu ku yiri waxaan abuurnay maartay chanceyo aad u fara badan hase ahaatee ka faa'iideysan waano oo waliba khaas ahaan anigu inaan 2 gool iyo 3 gool aan xira ay ahayd hase ahaatee ma dhicin sida ognahay Gabriel Jesus ma ahan Haaland ma ahan Cristiano Ronaldo oo nin lagu yaqaan ma ahayn inuu maartay gool fara badan u xiro hase ahaatee wuxuu labadooda uga fiicnaa ayaa waxay tahay inuu ciyaaryahanka maartay banoonta jiido maartay asaga uu chanceyo fara badan u abuuro oo marka ciyaaryahanka kale ay maartay dhaliyaan ama asaga laftirkiisa uu maartay geemkan oo kale loo baxsado marka aad fiirisana second half iyo Gabriel Jesus qaabka uu ciyaarayay runtii waxaa la oran karaa daal badan ayaa ka muuqday maadaama Europa League geemkii maartay ugu dambeeyay almost 70 minutes ilaa 80 minutes uu ciyaaray halkaana waxaa la oran karaa ciyaaryahanka daal ayaa ka muuqday sidoo kale Arsenal first halfkii hore maartay ciyaar qurux badan ay soo bandhigtay Xhaka ayaa gool xiray penalty ay heleen taasoo loo diiday penaltigaas waxay ahayd penalty cad in loo dhigo ayay ahayd Arsenal waayo laba nin oo maartay refereeyaashii ka mid ahaan jiray Premier League oo hadda laakiin retire gareeyay midka koowaad uu yahay Keith Hackett iyo midkii hore isna la oran jiray Mark Hasley labadooda waxay dhaheen Arsenal waxay ahayd in first half-ka maartay la siiyo penalty lagu award gareeyo hase ahaatee ma dhicin taana waa referee xumo ay ahayd mihi qof hadda uu oonayay maartay penalty iyo waxaas laakiin penalty waa penalty haddii aad heshana geemka waxaa laga yaabi lahaa Arsenal inay saa ku badan lahayd oo maartay ay geemka ciyaartiisa ay bedeli sidoo kale Arsenal mentality-geeda second half-kii ayaa ahayd maartay mentality aad u qaab daran waayo Arsenal waxay la tartamaysay City season-kan sidoo uu bilaabmay oo markii gool lagu hayo waxay ahaayeen dad aad u soo maartay attack-tamo oo maartay soo weerartamo laakiin geemkan hadda iyo waliba kii ka horeysayba levelkoodii uu drop garay oo maartay hoos ayuu u soo degay mentality-goodana maartay ay tusayeen ma fiicneen fanskana kuma farxin taana maartay waa bench xumada Arsenal ay qabto oo maartay Arsenal ma hayso in hadduu Xhaka maartay midfield haddii aad wax ka bedelayso inaad wax bedeli karin kaliya aad bedeli karto inuu yahay ciyaaryahanka garoonkaadi kugu fiicnaa sida Odegaard oo kale Martinelli oo kale iyo Saka inay bedesho ma ogi Xhakana ma taaban kartid maartay Parteyna ma taaban kartid midfieldna waa halka laga maamulo banoonta oo mar walba aad bedel uga baahan
baahan tahay markii ay maaragtay ciyaarta ay ku xun tahay. taana Hansafaga iyo Arsenal ayaan ku arki doonaa seasonkan January-dan ayaan ku arki doonaa Arsenal iyo waxaysan. In terms of Arsenal transfer ku saabsan oo waliba update-ka uu soo bandhigayay Fabrizio Romano oo caan ku ah ama expert ku ah wararka suuqa maaragtay kala iibsiga ciyaaryahanada ayaa wuxuu maaragtay bartiisa Twitter-ka kusoo qorayay in Naby Keita oo Liverpool u ciyaaryahan Premier League iyo Champions League ba la qaaday maaragtay Liverpool uu available uu noqon doono seasonkan marka uu dhamaado, taasoo waliba Arsenal maaragtay uu ugu jira listiga ciyaaryahanada ay raadinayso. ciyaaryahankan sidaa ognahay waa ciyaaryahan aad u fiican box to box marka uu dheelayo, se ahaatee dhibkiisa ugu weyn ayaa waxay tahay injury oo inta uu la joogayba Liverpool 16 league ayuu kaliya u bilaabay, wixii ka dambeeyay oo idilba injury ayuu maaragtay uu ku dhamaystay ciyaaryahankan. hase ahaatee waa ciyaaryahan marnaba aan laga shakinaynin qaab ciyaareedkiisa, dhibkiisa kaliya ayaa waxay tahay injurygaas. hase ahaatee Arsenal akhyaaray ma keeni doonaan ciyaaryahanka waliba Arteta oo ognahay ciyaaryahanada uu rabo. sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa isna uu maaragtay la sheegaya in Arsenal iyo Newcastle maaragtay ay leeyihiin quality-giina aad ka faa'iidaysataan, maadaama waliba hadda Arsenal dhibka uu haysta uu yahay in aanan lahayn striker weli clinical ah oo si fiican wax u finish gareynayo. Gabriel Jesus ayaa noo jooga ciyaaryahan aad u fiican, garab aad dheelsiin karto, saddexda garab iyo number 9 aad dheelsiin karto. hase ahaatee akhyaaray waxaan idin weydiinaya ma jeclaan lahayn Gabriel garabkiisa inaad ku haysato Cristiano Ronaldo oo ah ciyaaryahanka aad ogtihiin, mise waxaad leedihiin sida Arteta oo kale anaga sideedaba 25 sano wax ka weyn ma doonayno, taana idinka ayaa idinkaga tegayaa. sidoo kale ciyaaryahankan ayaa isna suuqa aad loogu hayaa oo Enric la yidhaahdo, waa ciyaaryahan aad u da'yar, ilaa waxaa lagu soo qabtaa maaragtay Romario. dadka PS aad u yaqaana way garanayaan ciyaaryahanka ama dadka waaweyn ee maaragtay football kusoo gaarayba ninka intuu ciyaarayay. Romario oo Brazilian ah, ciyaaryahankana waa Brazilian, gool aad fara badan ayuu u xiraa tiimkiisa hadda uu u dheelayo. waxaa leeyahay suuqa ayuu available kasoo noqonayaa, inkastoo tiimkiisa uu la saxiixay heshiis. ahaatee in la sii daayo oo ay maaragtay tiimkiisa ay sii daayaan waxay ku xiran tahay 60 milyan. ciyaaryahan oo kale badi wuxuu ku daba dhamaadaa PSG iyo Real Madrid iyo meelahaas ayuu ku daba dhamaadaa. sidaa ogtihiinba Vinicius Juniors iyo maaragtay Rodrigo, ciyaaryahanada markay ay yihiin aadka talentiga u leh badi waxay aadaan maaragtay tiimka waaweyn. hase ahaatee Fabrizio Romano siduu soo report gareeyay tiimo fara badan oo maaragtay ama kalaabyo fara badan oo ka dhisan Premier League ayaa ciyaaryahanka aad u raadinayaan. sidoo kale loonkii Arsenal ka maqnaa balankan ee maaragtay loo diray League One ayaa isna on fire oo la qaban laayahay. ciyaaryahankii yaraa ee Arsenal ka tegay dadaad loonka ay u dirtay 7 gool ayuu xiray, waana la qaban laayahay. marka ciyaaryahanka concernka hadda iga soo galay ayaa waxay tahay January-dan akhyaaray ma jeclaan lahayd in balankan dib loo soo celiyo, maadaama oo already liiga uu ka noqday maaragtay bahal uu ku noqday. kastoo Arsenal hadda ay dib ku tahay maaragtay inay gool la xiraan. ninkii ahaa Eddie Nketiah uu maaragtay inta aan contractiga aan ugu darna isna uu sii halaabayo. sidoo kale akhyaaray waxaa la confirm gareeyay Arsenal marka ay kasoo noqoto World Cup-ka ciyaaraheeda tiimkeeda ugu horeeya waxay la yeelan doontaa West Ham, kadib waxaa ugu xigo Brighton oo away ah, kadib waxaa ugu xiga Newcastle. World Cup markii laga soo noqdo Arsenal uma ahaan doonto bilaabasho aad u fudud, hase ahaatee waan arki doonaa halka ay Arsenal ay maaragtay sida ay geemka ay uga baxsan. sidoo kale Arsenal all competition ayaa waxay dheeshay 15 game, waxay badisay 13, hal ayay draw gashay, halna way ku qasaartay oo loos ay ku gashay, halka ay xireen 32 gool, 12 goolna ayaga laga dhaliyay. 7 clean sheet ayay wataan. Premier League ayay ugu horeeyaan, groupka maaragtay group A-na ayaga ugu horeeya Europa League. marka akhyaaray videogani halka ayaan uga baxayaa. wixii fikrada ah waxaad igula wadaagi kartaan qaybta commentiga. haddana sidaa ayuu waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.